halkan waa janalka Somali News 724 qodobada warka janalka Somali News 724 kuwada maanta ugu waaweyn waxa kamid ah kulan qarsoodi ah oo ay wada qaateen madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kulankaasi oo durbaba xog lama filaan ah markaasi villa Soomaaliya ay xilligan ka soo saartay iyo Cabdi Qaydiid oo Cali Mahdi u gudbiyay codsi ka yimid ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo kulamo xasaasi ah oo xilligan magaalada Muqdisho uu ka wado oo markaasi xabsiga u taxaabtay Soomaali badan oo dalkeeda xilligan ku sugan iyo dawladda Soomaaliya oo aan wali markaa ka hadlin Soomaalida halka lagu xiray ciidanka ilaalada xabsiga dhexe oo lagu bedelay ciidan laga keenay gobol kale taas oo xilligan walaac badan ay ka muujiyeen siyaasiyiin badan ujeedka kulan dhexmaray James Swan iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya oo shaki weyn xilligan ku abuuray villa Soomaaliya Maxamed bin Zayid oo markaa Mareykanka kala hadlay qorsho ka dhan ah Turkiga iyo Sacuudiga iyo Turkiga oo xilligan markaasi dagaalkii ugu xumaa dhexmari rabo Iran oo markaasi luuqad adag uga hanjabtay Mareykanka kadib talaabo uu dhawaan Mareykanka Iran ka dhan ah u qaaday qodobadaas ayaa ku daawan doontaan warka janalka Somali News 724 fadlan daawadi haddii ay tahay markii kugu horeysay aad janalkan soo booqato ha naga ilaawin subscribe share like gambalelka furo si aad u rukumatid janalka Somali News 724 haddii aan ku bilaabo xilligan waxaa soconaya markaasi kulamo uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qarsoodi ahaan kula yeelanayo madaxdii hore ee dalka markaasi soo maamushay xilli madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Axmed uu dalka ka maqan yahay isagoo ah gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran hase yeeshee kulan qarsoodi ah oo markaasi dhexmaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligan waxa looga hadlay in markaasi Xasan Sheekh Maxamuud uu markaa taageero u fidiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markaa arrimaha doorashada xilligan ku aadan iyadoona markaa xilligan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markaa ka codsaday inuu markaa garab uu ku siiyo doorashooyinka dalka iyadoona xilligan Xasan Sheekh Maxamuud uu markaa muddo 2 sano ka horba horay uu sii shaaciyay inuu yahay musharax mar kale ku loolamaya xilka madaxweynaha ee Soomaaliya Farmaajo oo xilligan markaasi la rumaysan yahay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu markaasi wada tashi la yeelanayay beesha uu ka soo jeedo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyagoona markaasi kula taliyay inuu markaa kulan la qaato si ay markaasi xilligan arrimaha jira xilligan Xasan Sheekh Maxamuud looga dhaadhiciyo waxaana markaasi Xasan Sheekh Maxamuud muddooyinkii dambe uu ahaa kuwa hadallo kulkulul warbaahinta u marinayay madaxda ugu sarreysa dalka gaar ahaan madaxweyne Farmaajo uu dhawaan uu sheegay in markaa uu ku tumanayo dastuurka dalka u yeelo waxaana markaa xilligan soconaya kulamadaasi iyo sidoo kale xilligan sidii looga turxaan bixin lahaa villa Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay aynu ka helino villa Soomaaliya ayaa xilligan waxa ay tibaaxayaan in markaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku qanciyay madaxda markaasi ee dalka xilligan gaar ahaan xafiiska villa Soomaaliya ninka ugu sarreeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in markaa uu ka garawshiyo ka bixiyo waxyaabihii hore markaa loogu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay markaa qayb ka tahay celintii markaa laga celiyay isagoo u socdo magaalada Kismaayo xilli markaasi la caleema saarayay madaxweynaha iminka Jubbaland Axmed Madoobe waxaana sidoo kale markaa Xasan Sheekh Maxamuud uu dalbaday in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii uu doonayo in markaa waxyaabo badan ay ka wada hadlaan isaga iyo Farmaajo inuu raali gelin ka bixiyo waxyaabihii hore ee qaladaadka hore uga dhacay oo madaxdii hore ee dalka markaasi uu kula dhacay hase yeeshee dhinaca kale waxaa markaasi la soo sheegaya in kulankaasi qaybtii ugu horeysay markaa uu fashil ku dhamaaday labada dhinacna markaasi ay xilligan markaasi sheegeen in waxyaabo badan aanu suuragal in madaxweyne Farmaajo uu xilligan ku dhaqaaqo hase yeeshee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulanka kadib waxa uu markaa xiriir dhanka qadka telefoonka uu la sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Axmed oo ah gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran oo uu markaasi sheegay in madaxweyne Farmaajo xilligan uu dalbanayo in markaa waxyaabihii hore u dhacay ay markaa ka wada hadlaan Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa markaasi kulan la qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo dhawaan markaasi loo wakiishay hogaaminta siyaasadda Mundulood warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay
warar lagu kalsoon yahay oo aan helayno ayaa markaasi sheegaya in senator qaybdiid uu cali mahdi u gudbiyey codsi ka yimid ra'iisul wasaaraha cusub ee magacaaban ee aan weli hortagin baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kaas oo ahaa in mudulood ay siiyaan fursad aysan ka hor imaanin xukuumadda cusub oo soo dhisi doono iyo guud ahaanba hogaamintiisa ila wareediyo muhiim ah ayaa inoo sheegay in qaybdiid uu sidoo kale markaa madaxweynuhu u sheegay in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda uu keeni doono ay ballan qaadayaan in aan la dhibaatayn mudulood loona fududeeyo wax kasta oo ay markaasi xuquuq u leeyihiin isla markaana ay awoodda markaasi dowladda Soomaaliya ay qayb ka noqon doonaan cali mahdi maxamed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay inuusan jirin wax dhibaato oo ay markaa xukuumadda cusub kala kulmi doonto mudulood balse waxa uu dalbaday in ra'iisul wasaaraha markaasi uu ka fogaado wax kasta oo dhaawici kara ama fogeyn kara dadka uu markaasi u matalo ee beesha hawiye senator cabdi xasan cawaale qaybdiid waxa uu markaasi hormuud ka yahay xildhibaano iyo senataro badan oo balka dalbanaya in lala shaqeeyo Maxamed Xuseen Rooble oo aan markaasi wali helin kalsoonida baarlamaanka waxaana muuqato abaabul xoog leh oo markaa ka soconaya magaalada Muqdisho kaas oo lagu raadinayo kalsoonida beelaha iyo siyaasiyiinta magaalada Muqdisho cabdi qaybdiid iyo Rooble ayaa markaasi ka soo wada jeeda juufada reer Hilowle ee beesha reer Sacad waxaana markaasi xilligan markaa soconaya in uu taageero badan xilligan ugu raadinayo beelaha kale ee degan magaalada Muqdisho ciidamada booliska ee gobolka Gaarisa ee Kenya ka tirsan ayaa gacanta ku dhigay dad Soomaali ah oo tiradoodu markaasi lagu sheegay 12 qof sida uu baahiyay Citizen TV waxa markaasi shakhsiyaadkaasi loo qabtay kadib markii markaa laga waayay dokumentiyo muujinaya jinsiyadooda xilli ay saarnaayeen gaari dawladeed telefishinka oo soo xiganaya laamaha amniga ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay markaa shakhsiyaadkaasi ka dalbadeen hubinta howlaha ay wadaan iyaga oo markaasi maraya buundada Gaarisa Tana kadib markii ay cadaatay in ay markaasi wataan dokumentiyo aan sax ahayn eedeysanayaashan ayaa waxa loo haystaa inaysan sax ahayn aqoonsiga gaariga ay wataan kaas oo ay ciidamadu markaasi xaqiijiyeen inuu markaa ka diiwaan gashan yahay wasaaradda horumarinta ee markaa magaalada Gaarisa ka dhisan saraakiishu waxa ay ogaadeen in aqoonsiga la siiyay uu ka duwan yahay midka gaariga markaasi dhabta waxay kale markaasi ogaadeen gaariga uu markaa ka diiwaan gashan yahay wasaaradda horumarinta magaalooyinka Gaarisa ayay yiraahdeen ila wareediyo dhanka amniga oo markaa nala hadlay arrintan ayaa markaasi imaanaysa xilli uu tuhum badan ka jiro dalka Kenya kaas oo la xiriira ganacsiga dhoofinta dadka maadaama marar badan oo markaa laga dhoofiyo gawaari aan markaasi sharciga Kenya ee xilligan u yaala aan la marsin dabayaaqadii isbuuci hore umbay ahayd markii ay ciidamada Kenya ay fashiliyeen kooxo markaasi xilligan ciidamada Kenya ay fashiliyeen kooxo ku howlana dhoofinta dadka isla markaana ay xireen raggii ku howlana falkaasi iyo 3 gaari oo ay wateen dhinaca kalena taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa kulan uu kula qaatay magaalada Muqdisho wakiilka gaarka ee xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan James Iswan ayaa xilligan waxa ka soo baxaya warar hordhac shirkan oo markaasi ka qabsoomay xerada Xalane ayaa diiradda lagu saaray qaabkii ay markaasi dhinacyada shaqada kule isaga kaashan lahaayeen sugidda amniga doorashooyinka oo markaasi soo aadan ee la filayo inay dalka ka dhacaan 2020 barta Twitterka howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu soo qoray qoraal markaasi ku saabsan kulanka labada dhinac sidoo kalena lagu faahfaahiyay qodobadii lagu jeexjeexay kulanka wakiilka qaramada midoobay waxa uu markaasi la kulmay taliyaha ciidanka booliska General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar si uu uga hadlo mowduucyo ay ka mid yihiin wada shaqaynta hay'adaha ammaanka Soomaaliya iskaashiga dhinaca daneeyaasha iyo waliba qorshaynta ammaanka doorashooyinka nagu soo fool leh ayaa lagu yiri qoraalka lagu daabacay barta Twitterka ee howlgalka qaramada midoobay taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa ay sheegeen in kulankii dhacay uu ahaa mid muhiim ah isla markaana lagu qorsheeyay hanaanka markaasi lagu sugi lahaa goobaha ay ka dhacayso doorashada soo aadan waxa jira cabsi laga qabo weerarada kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida kuwaasi oo kordhiyay muddooyinka dambe weerarada ay la beegsanayaan xubnaha dawladda iyo waliba xarumahooda ha yeeshee dhinaca kale kulankaasi waxa markaa warar ay soo saartay Villa Soomaaliya ay ku sheegtay inay aad uga xuntahay kulanka xilligan markaasi dhexmaray Cabdi Maxamed Xasan Xijaar iyo sidoo kale wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyagoona markaasi sheegay in xilligan aysan suurtagal ahayn wadada ay qaramada midoobay u marayso dhinaca la shaqaynta ammaanka oo ay sheegtay in wasaaradda amniga aysan xilligan kulanka soo marin iyadoona markaa
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Xijaar looga digay in markaa falkaasi uusan dib dambe ugu dhaqaaqin haddii uu ku dhaqaaqano markaasi ay villa Soomaaliya xilligan ku goodisay in uu weyn doono xilka markaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya dhawaan ayaa la filayaa in villa Soomaaliya ay talaabo dhanka ammaanka ay u markaasi u dhaqaaqdo maadaama xilligan dalka uu ku jiro arrimo xasaasi ah iyo waliba xaalado aan markaasi indhaha laga daboolan karin halkaad warkaasi kala socotaana waa channelka Somali News 724 haddii aan fiirino qodobada kale ee warka dibadda dawladda Iiraan ayaa si kale ugu jawaabtay talaabada markaasi Mareykanka uu ku rabay inuu cunaqabateynta qaramada midoobay dib loogu soo rogo Iiraan xilli talaabadaasi lagu macneeyay mid sharci darro ah madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ugu horreyntii sheegay in Mareykanka uu wajahayo guuldarro weyn kadib markii ay wadamo badan oo reer Yurub ay ka hor yimaadeen rabitaankiisa waxa uu markaa ku hanjabay in Iiraan ay qaadi doonto jawaab si daran oo markaasi u burburin doonto inkastoo uusan carabaabin jawaabta ay xilligan markaa Tehran ay bixin doonto Trump iyo maamulkiisa ayaa qaba in talaabada ka dhanka Iiraan ay markaasi ku caddahay in la qaadi karo mar kale heshiiska uu Mareykanka ka baxay 2 sano ka hor ee sanadkii 2018 ee la xiriiray nuclearka aragtidaasi mid gaasan ayaa markay qabaan dalalka UK Faransiiska iyo Jarmalka waxayna markaasi si wadajir ah u sheegeen in Mareykanka uusan awood buuxda u lahayn inuu qaado talaabo noocaasi oo kala ahi rabitaanka Mareykanka ayaa sidoo kale markaa uga hor yimid dalalka xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay xilli la soo warinayo in xukuumadda Washington ay cunaqabateyn ku soo rogi doonto tiro markaasi dad badan oo la xiriirinayo barnaamijka nuclearka Iiraan iyo gantaalada ridada dheer ee markaasi kiimakada aan xilligan la shaacin ay Iiraan ka sameynayso ugu dambeyntiina dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed ayaa ka hadlay wasaaradda markaasi kala hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka saldhigga ciidamada cirka Mareykanka ee markaa loo yaqaano Sri Lanka ee laga soo raro Turkiga loona soo wareejiyo Imaaraadka Carabka waxaana sidaasi wariyay wargeyska The New Khaleej ee ka soo baxa Imaaraadka Carabta ila wareejiyo lagu kalsoon yahay ayaa wargeyska u sheegay in qorshaha uu yahay in la sii xoojiyay xiriirka qotada dheer ee Imaaraadka Carabta waxaana markaasi uu la leeyahay Mareykanka Abu Dhabi ayaa dhawaan markaasi xiriir rasmi ah la sameysay Israa'iil kadib markii cadaadis xoogan oo kaga yimid dhanka Mareykanka The New Khaleej ayaa sheegay in ilo sirdoonka ay u sheegeen in bin Zayed uu rumaysan yahay inuu Abu Dhabi ay danteeda markaasi istaraatiijiga ay ka hormarinayso wax kasta oo ugu jirto xiriirka gaarka oo ay la leedahay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald J Trump sida uu wargeyska sheegay Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale markaa Pentagonka Mareykanka iyo hay'adaha maaliyadeed kala shaqeynaya mashruuc military iyo waliba kuwa dhaqaale si kastaba afayeen u hadlay Pentagonka ee Mareykanka oo lagu magacaabo Colonel Thomas Campbell ayaa markaa wakaalada wararka ee Angelo markaa u sheegay in Mareykanka uusan wax qorshe ah ku lahayn in uu markaa ka guuro saldhigga markaasi ee Mareykanka uu ku leeyahay waddanka Turkiga qaybo ka mid ah xiriirka Turkiga iyo Mareykanka ayaa mugdi soo galay sanadihii tagay hayeeshee joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Turkiga ayaa lagu waramay in ay dan markaasi ka badan Turkiga ay ku qabaan Mareykanka guud ahaan daawadil intaas ayaan ku soo gabagabaynaa warkii aad ka daawanayseen channelka Somali News 724 tan iyo kulankeena dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo amaana Allah daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay aad channelkan soo booqato ha naga ilaawin subscribe share like gambaleelka furo si aad u rukumatid channelka Somali News 724 waadna ku mahadsantihiin daawashada wararka channelka Somali News 724 nabadgelyo